waxaa runtii waxaynu falanqaynaynu bay ka mid tahay matalan aad u mahadsan yihiin in aynu helo marka la helo in si fiican oo sida yihiin ama wixii inta laga ogaado marka la yiraahdo kulankan matalan waxa laga yaabaa marar fara badan in aynu la'ayn inagu waxa weyn Soomaali shan Soomaaliyeed bay ka koobnay ama Soomaaliland ha noqoto ama Soomaaliya ha noqoto waxa weyn tan state kan maanta la taagan yahay dhowr qodob bay kaga duwan tahay meelaha kale waxa weyn Addis Ababa waa xarunta AU-da xarunta AU-da waxa weeyaan hadda waxa ka socday shirar marka la eego u yeerista loo yeeray madaxweynaha waxa weyn arrin weyn bay ahayd oo geeskan Afrika oo dhan ka socday imika hore waxaynu ogeyn in marka hore ay dhacday in dawlado fara badan ay ku jireen matalan Soomaaliya iyo Somaliland wada hadalkeeda laakiin uu gaabis fara badan galay laakiin imika oo kale waxay kaga duwan tahay number 1 protocol madaxweynenimo ayaa la siiyay calanka waa mamnuuc kuma siin karaan haddii aanay jirin maxay ahayd protocol ahaan oo waxaan arkaynay imika gaariga madaxweynaha calankeena caadiga ah ku yaalay si caadi ah protocolkii loogu soo dhaweeyay isagana loogu soo dhaweeyay kuwaas qodob bay ahaan geopoliticalka socda haddana number 1 waxa weeyaan innaga maxaynu u baahanay Somaliland ahaan Somaliland waxay ahayd dalkii la isku oran jiray labadii dal ee midoobay Soomaaliya horta waa shan Soomaaliyeed labun baa midoobay marka waxa weyn labadii midoobay dib bay u kala noqdeen horta arrinkan ka soo ahaa maadaama dib u kala noqdeen maxaa haddana taagan weeyaan wax weyn marka Soomaaliya wixii Soomaaliya oo dhan la oran jiray ilaa maanta waxaad mar hore waxa jiray Allaahna xastay cigaal ayaa soo qaaday halkan inagoo joogno yiri kursigii Soomaaliya ee dhaxal dadku may fahmin macnaha looga jeedo dhan waxaan oo dhan baa baan gali lahaa imka maanta waxa laga yaabaa wax kasta oo magac Soomaaliyeed Soomaaliya iyagu ma lahaynte waa Soomaaliya isku tagtay ama shantii Soomaaliyeed bay noqonaysaa oo aan labaun ay ka xoroobeen oo israaceen Djibouti oo kale kamid bay ahayd Djibouti deegoonideedii u taagan tahay labada kalena ma bay xoroobinba in marka state-kii Soomaaliya wixii la oran jiray in la kala qaado oo la taaban imika inuu hadaynu ku doodi lahayn mar kastaba adduunyadu waa inay Soomaaliya wixii oo dhan ka dhigto sidii hore u jirtay imika shirkii London horteed Soomaaliya ma jirin oo looma aqoonsanayn inay deetay state-han loola dhaqmo marka waxa weyn tan imika waxay noo furaysaa marka aynu ka hadlayno geopoliticalka geeska oo ka socda innaga waxay noqotay in laga maarmi waayay oo ay noqotay arinteenu qadiyadeena ama meesha aad ku taalaa muhiimkuna oo meesha ku taalay imika marka badda cas laga hadlayo kala badda cas cid ka hadlaysay wax weeyaan kan waxa jiray nin professor oo la yiraahdo Hayla Maryam oo ah nin aad Itoobiya u respect garayso waad ka helaysaan matalan Itoobiyada oo dhan maalintii loo waday xisbigooga uu la hadlayay wuxuu soo bandhigay Somaliland waxa ay tahay in khalad badan la galay oo aan Somaliland aan laga maarmi karin xiriirka ka dhaxeeya iyada iyo Itoobiya kale sababtu ku beesgareeyay waxa ahayd meesha ay ku taala muhiima tusaale wuxuu soo qaaday wuxuu haddii Soomaaliya uu lala galo wax way fagareynaysaa Somaliland wuxuu soo qaatay xarigii maalintii loo waday meesha la marinayay iyadoo boosaaso loo wado kale iyagii xaggaas ay la heshiiyeen soo ma ahayn wax weyn tayd la heshiiyeen buuri difadkay ku sameeyeen weydinka arkay buuri oo waxay weeyaan dad ba meeshii jooga qofan joogina ma oran karo berbera laga hadlaya ama dhulkana laga hadlayo waa loogiyaa duudina ogtahay markaan iyadoo lagu cadaadinayo moojaanan in ay tahay marka run ahaantii wax weeyaan in uu bilaabmo garnaqsigeeni oo la sheego la tago ay dawladda ka marxaatiyaal ka yihiin Itoobiya kale inama khasbayso imika matalan Itoobiya kale marka la yiraahdo inama khasba karaan inaga Itoobiya laakiin waxa weeyaan waxay sameynaysaa xiriir badan naga dhaxeeyo location la sameeyo bal sidii la isku soo dhawaan lahaa horena way u dhacdaa wax weyn geeska wixii ka dhacayo dhan wuxuu wada marka inaga san loola dhaqmay madaxweynaheena baa loola dhaqmay calankiisii baa la siiyay labadiina baa leeyahay wada hadla iyagii way ogyihiin allan inta markii la yirmo soo degay hadii waxa weeyaan hadii aad adigu gartaada Soomaali hore u sheegtay adigoo gar leh hadii aad si fiican u garnaqsan weydid
marka adigoo gar leh oo aynu waxaysanno in aynu uga baqanno cid ma aha waxa weeyaan waa in la hagaajiyo waa in la sii sameeyo kana anigu sidaan u arkay waxa weeyaan waa bilow ma aha wax la samaynayo dad baa soo jeedinayay matalan labadoodun baa gooni u kulmay waa isa salaanta hore hadal kale waxa ma jiraan oo wax gaar oo la sii gelayo marka la gelayo weeyaan moogta laakiin horta markii hore ma bay jirin ba waa imika dagaal baa dhacay dad baa imika labadeeno kale saysanay oo kale waxa laga yaabaa de wax weyn wad isku cadhaysanaydeen markii baa afkun iskama gelayo horta waa in la soo dhaweeyo salaamu calaykum kadib baa la fareem galaysan karaa sidee noqonaysaa ama loo wada hadlaya ama halkaa looga sii ambaqaadaya halkii inoo joogtay marka ayaynan iska dhigin dad waxa weyn hore wixii u yaalay weyn ogeyn madaxweynuhu waa kii halka ka sheegay ballamadii hore oo dhan baa laga baxay wixii oo dhan baa laga baxay sababaha ay taariikhdu leeyihiin inaanay waxaan inaga kala lumin oo sidii iskugu xigeen waxaan oo dhameeyeen wax yarna de maaha waxa weyn 60kii bay qoran yihiin waxaan laakiin adigu si isku qaabaysid bay ku xidhan tahay inaynu isku qaabayno way abdul marka laga qado Soomaaliya laga hadlayo oo qadiyad bulshadan aragtidooda ku kooban موسى يفرماجو قايو قام قوين كلا مايا ما والله كان خلدين وحويان imika بريمكي ويان موقت madaxweynuhu waa statekii waxweeyaan wax ka balaaran ba dameesha loo wax saacad qof qori kara ama oran kara waan iswareejino saasay u dhacday maaha waxweeyaan waxa la bilaabayaa oo la isla ogolaanaya waxweeynagu xageena diyaar baynu ka hayn waqti la sheegay meel walba way taalay Soomaaliya iyo Somaliland in loo wada hadlo oo wada hadalku hadaba soo noqonaya wada hadalku inuu noqdo time mid waqti leh jadwal bale inta la soconayo midna maalmihii hore kale imika waxay noo yaalay wax weeyaan hore waynu wada hadalay maxaa wada hadalka hore laga gaaray waxaynu gaarnay badda marka waxay imanaysaa marka wax dhab ah maaha afar qof waxay ku xidhanaysaa meel waa wax la qorayo oo la isla og yahay oo ma mushkiladayna haysa waxaan intii midna wax lagu xisaabtamayo war halka marka socoto ee loo aanu ka soconaynin wada halkii in cidina joogto meelaha qaar kood oo kale in deysa salaankan oo kale iyo kaasi laakiin marka loo dhaadhici doono horta waa in la qoro jadwal halku u soconaya halkee jooga yaa ka masuula haddana la yiraahdo ay sii noqonayso marka waa waxa inoo noqonaya halka markay taagantay leedo ma midha dhalkii hore oo kala dadkeen laftoodii because miidihi iyo wixii dhan waa inaan isla wada jaan qaadno weeyaan adduunyaduna waxa weeyaan waaba meel kaliya wax qarsoodiyeen ma jiraan waa ka adeerkiisa hore si gaar ah isugu ilaalintii haday maamiraha ku maasoo kale madaxda cusbiyada kale ku inay sida Faisal Ali Waraabo kale saba waxa weeyaan walaysaan Soomaali waa Soomaali laakiin xuduud banu kalana horta in number 1 saa u faano Soomaali waa Soomaali laakiin kala xuduuda tii Djibouti jirta waa Soomaali tii Ethiopia jirta waa Soomaali tii waxa jirta Kenya waa Soomaali marka eeg matalan ma wada hadallada oo waxay leeyihiin walaal munaaqabay leeyihiin moogta inagana aynu wax weyn ba meeshii yaale laakiin marka horeba in been la iska sheego ama dacaayad yar oo raqiisa iyo waxaan ma garanaysaa qadiyada iyo waa kala jaad iyo matalan kulamadu moogta kulamaduna waa kala jaad way niga ogeyno kulamada qaar kood waxa ku jira xitaa macaaradka oo ka wada qayb galay kuwaas oo kale waynu oran karnaa moogta laakiin ambitionka in laga gudbo horta maxaa loo jeedaa weeyaan war qadiyadayda inaan miiska dhiga maxaa ii diidaya inagoo isku wada dhan maxaa la qarinayaa dadkana loo bandhigo kale raacsanaya wax weyn ay jirta walaalo dadka in loo bandhigo imika xalay wadiga arkay miis baa la wada fadhiyaa markiiba voice ka helay waxeen waa sawir kamay helin laakiin markiiba wax qarsooni ma jirin hadii la shaqeysanayo labadii weyna kulbeen
marka miis baa lagu wada fadhiyay dadweynahana saa loogu bandhigo halkaasay noo maraysaa kaasay noo maraysaa kaasay noo maraysaa qadiyadii oo wax hagaagsan iskugu ogaano waxa weeyaan markii loo yeedhay madaxweynaha hore umay dhicin fi taariikh waxa weyn AU waa xaruntii AU-da Afrika xarunta Afrikana marka shirku ka socdo منبرسك شرعي موجاني عد كلو فريستا هلك هذا ركتين إلا إسكوسا ولا متشتو وحويان معلم بواحد عبد الله محمد دعالي تصالح في عم بايد كفلان وحويان لو بالنسبة كسمينيين أيو ذا حرون تقولي هذا وحوين وحقيلي السودان ماشي بكل حشدان لو الصومال ما اعترفتن ككلام هلت هالكاسي ولا لهاي ماشي الحرونتن يتني أي كجد جونته بوقشوين ككلا يتنوي كالدويه وحويان كان واحد صعدا أيو وحرونتو ذي أي تاي شركة أو صعدا مركا هدي أنا كومينيكيت كوتشرين عد صعونا يسوق كشغالين يسمى أشاس هرت ما يصير تونكشان تن أنا وارون تاي وحوي إن دقوا كوي شوك سدي إنك نحن وينجيس أبدت جرينني إن محيهيد إن وحيالها قار كودنا ولا لا يشرا أو إن لا بلا إلا صوب سلادان أم بيحكرين وقت والدبل متى مثلاً واحد شري إن هذو إن مثلاً سراق قار كود إلا صوب سلادان عدو جوف في البداية وقت إن لا يرها ياوي في عنتها لكن أرنكم ما أهين شركينو براب مايو وحوين أركتي تانا مركو هربا هرينو نيري وان ودا هادل كرنا ما ودا هادل كرنا قديديني ما بندغان كرنا qodobka ugu muhiimsan kaas waxa marka waxa weyn horta in iyagi imka hadalkii ma bilaabmayo waxa weyn qadiyadii in ay u furanto ay noqonaysay ayaan an jeclay walaalo level ka kale AU-duna waa mid ku jira weeyaan oo waxa weyn lama geli karo huleelada imka shalka lagu dejiyo halkii madaxweynaha ku jireen marka hadii ay wala isweydiinaya soo moogid wax qarsoon ma jirade madaxweynaha Soomaaliland kontaagiisi uu yimid waay meel eeg marka haddaan isagu samaynin ama aan laynoo fududaynin wax badanna waa laynoo fududeeyaa dee marka qaarkood baa layidhaha meel la ictiraafay waadigoog waxyaala baa jira mayka ku fiicnayn inay walaal ka baxaan marka anugu waxaan u arkaa un taas oo kale moogta ya in matalan microphone diplomatka oo dee waxyaala lagu sameeyo marka laakiin waxaan u arkaa in protocol-kaas iyo bilowgaas way noo fiican tahay inaga sidaynu uga faa'iideysanayna ay ku xidhan tahay oon didma iyo kan kale iyo aynu dhinac uga wada jeedano laynamana qaadan karo hadda buug baa jira hadda ilaa xalay hadda buug baa jira